garaad cabdulaahi cali ciid oo ka mid ah garaadada Soomaaliyeed. Garaad ku soo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيارتا kala duwan oo meeshan fadhida madaxda hore iyo mid dambe oo dawladda odayaasha dhaqanka oo aan tabayo wax badan in magacooda uu ka maqan yahay iyo ficilkoodu labadaba gabdhaha iyo dhalinyarada salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan sidii la sheegay anugu waxaan ahay oday socoto ku yimid oo oday dhaqameed ah oo ka yimid Puntland. waan maqlayay sidii maamul goboleedada looga hadlayay oo aan jeclahay ragga siyaasiga ahay marka ay hadlayaan dadka meesha jooga qaybtii inaanay didina siiqada hadalka ay aada uga taxadaraan. saas waa jeclahay. qodobka koowaad bacdama aan ahay oday ka yimi gobolkii Puntland, oday dhaqameed afhayeenka isimada Puntland aan ahay, waxaan doonayaa halkan saxaafadu taagan tahay inaan uga gudbiyo gobolkii aan ka imid oo Puntland dagaalada ka soconaya hawdkiisa inaan idhaaho joojiya dagaalka. dagaalkaas sida ugu horeysa oo loo joojin karo ha loo joojiyo. waayar baan oo marmarka qaarkood waa jeesteestaye kamaradu hadday hareerigooda raalli ahaanayo. odayaasha sabataliskaana waxaan leeyahay deg ha looga gurmado oo dagaalka ha la joojiyo. taasi waa intaa. qodobka labaad waxaan leeyahay shirkan ragga qabtay oo soo qabanqaabiyey waa hambalyeynaya. waxaana leeyahay sida aad sheegteen shirar dambe ayaad ballan qaadeen. shirarka dambe oo aada ballan qaadeen kolley afkaar cusubna waa keenaysaan. tanna wax usii dhigta wax usii hambalya ayaa leeyahay. taasina waa intaa. hambalyo wanaagsan ayaan u jeedinayaa. ta ku xigta waxa weeye Soomaali weyn ayaa laga hadlay. waxaa laga hadlay dowlad goboleedada iyo madaxweynayaasheeda. anigu dadkii dowlad goboleedada waa ka soo dhisay ayaa ka mid ahay. bal hadda ujeedada iyadiina waa idiin sheegayaa ogaada. marnaba Soomaali inaanu kala gogoyno kuma talagelin annaga. waxaa la yidhaahaa dowlad goboleedka Soomaaliyeed federaalna waa lagu daraa oo Puntland baa laga markaa. calankan madowooyinka naloo qaybqaybanayo xidigtanina waa saaran yahay dusheeda baloogaada. markii aan aragnay xaajadu sida ay tahay waxaanu isniri Soomaali haddii aan la daba qabatayn oo meel fayoobi laga helin dee meel laga gurmado la heli maayo. bal horta kuwani yaani mooryaan ku hana qaadina daba qabta ayaanu isniri. saasaan kabacdina Soomaali raadiya. sidii baanu yeelay. magac Soomaaliyeed baanu wadanaa iyo mid goboleed. waa soo boodnay xamar baan dusha kaga soo boodnay. inaad xusuusantihiin iyo ogtihiin iyo kale mooji ah. xamar baanu nimid. xamar dowladdii ku-meel gaarhka ahayd Cabdullaahi Isbooca madaxtooyada ninkii kusoo degay reer Puntland buu ahay baloogaada. Puntland buuna ka yimid. haddana waanu joognaa baloogaada. haddadanna kuma jirto mabaadi'da iyada Soomaali in la kala jarjaro oo ay kala go'go'do dooni mayno. awood la isku qabsado waxaan maqlayay madaxweyne. waxaan ka fakeraynay madaxweyneyaasha faraha badan leh, madaxyadaa badan oo dad gaar ah ku kala oo labadooda dowlad sheeganayo in qaaroon magac kale oo madaxweynaha ka yar duwan madaxnimadiisana aan dafirayn in loo helo. laakiin in laga dacwoodo madaxweynihii anagu kuma talagelin. madaxweynaha gobol hebel iyo madaxweynaha gobol hebel
hogaamiyaha dowlad goboleedka hebla baa la dhihi karaya iyadoo aan farsamo oo qaboon oo aan dagaal ku jirin oo karah ku jirin aan karaayo ku jirin oo aan khilaaf ku jirin ayaa lasoo dhirin karayaa waxaana daba waa loo helayaa dowladda Soomaaliya waxaan leeyahay ummaddan Soomaaliyeed qodobka ku xiga waxaa loo baahan yahay waddankan midnima looga baahan yahay dowladnima looga baahan yahay way jirtaa sabir baa looga baahan yahay adkaysi baa looga baahan yahay waqti in laysa siiyaa loo baahan yahay nabad baa loo baahan yahay xoog lagu keeno iyo xeelad dowladeed waay barya maaha dadka hubka ha laga qaado ayaa la leeyahay dadka hubka yes ha laga dhigo dadka hubka laakiin sidee looga qaadayaa xoog dowladeed baa looga qaadayaa oo xeelad wata aan karaaye ahayn iyo dil iyo kan iyo xurmo la-aan aan ahayn baa laga qaada sidoo kale ayaa nabadiina lagu soo celinaya taasina taa waay waxaan maqlaynay aniga madaxweynaha waa is aragnay 2 goor goliyaha baarlamaanadana waa is aragnay prime ministerka ismaan arag hadda inaan arki waayana kuma talagelin laakiin weli amarkii ma noqon inaan is arago 3 bilood baan meelahan joogaa ciidan in la diyaaro mooyo dagaal lama gelin karo saxaafadda ha u marto wixii aan hortooda uga sheegi lahaa saxaafadda ha marto ciidan hogaamadiisa iyo qaybihiisa ciidan baan ahaan jiray balada ogaala waa in la diyaariyo reer hebel buu yahay iyo keer buu yahay iyo waka waxaan leeyahay dhalinyarada